بسم الله الرحمن الرحيم تضبط بشا فبراير سنة 2026 كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii xulashada wararka qodobada barnaamijka aan idin kugu hayno waxa kamida waxa soo baxaysa faahfaahin ku aadan wadahadaladii xasaasiga ahaa ee dhex maray wafuudda ka kala socotay Iiraan iyo Mareykanka Turkiga oo shaaciyay in uu gacanta ku dhigay shabakad u basaasaysay Israa'iil laguna eedeeyay inay ku lug leeyihiin dilal Ruushka oo ku eedeeyay Ukraine inay ka dambeysay toogashadii magaalada Moscow lagula eegtay Jimcihii General sare oo ka tirsan ciidamada dalkaasi Mareykanka oo Shiinaha ku tilmaamay in uu sameeyay tijaabooyin hubka nuclear-ka dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka soo dhawaada marka la daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa intii la socotay shalay wararkayaga waxaan idinkugu soo gudbinay in magaalada Moscow lagu toogtay oo dhaawac halis la gaarsiiyay General sare oo ka tirsan militariga waddanka Ruushka haddaba arrintan ayaa waxa war ka soo saartay dowladda waddanka Ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa ku eedeeyay Ukraine inay ka dambeysay isku day lagu doonayay in lagu qaarajiyo General sare oo ka tirsan sirdoonka militariga Ruushka oo ka dhacay magaalada Moscow isagoo sheegay in falkaasi uu wiiqayo fursadaha lagu xallin karo colaadda labada dal Lavrov ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday Vladimir Alexeyev ku-xigeenka agaasimaha sirdoonka militariga uu yahay fal argagixiso oo muujinaya in xukuumadda Ukraine ay wado kicin joogto ah oo lagu carqaladaynayo wada xaajoodyada socda guddiga baarista Ruushka ayaa xaqiijiyay in General Alexeyev lagu toogtay gudaha dhismo ku yaal magaalada Moscow aroornimadii shalay ee Jimcaha isla markaasna loo qaaday cisbitaal baarayaashu waxay fureen dacwad la xiriirta isku day dil iyo haysasho hub sharci darro ah iyagoo baadigoob ugu jira qofka weerarka geystay Alexeyev ayaa horay uga qayb qaatay howlgallada sirdoonka ee Ruushka ee Syria waxaana sidoo kale door weyn uu ku lahaa wada xaajoodyadii lala yeeshay hogaamiyihii kooxda Wagner Yevgeny Prigozhin intii lagu jiray gadoodkii ay sameeyeen ciidanka Wagner 2023 hagaaga ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka Ukraine oo la xiriira eedamaha Ruushka markana Washington aynu eegno Mareykanka ayaa ku eedeeyay Shiinaha inuu si qarsoodi ah u sameeyay tijaabo nuclear sanadkii 2020 isagoo ku baaqay in la sameeyo heshiis cusub oo ku aadan xakamaynta hubka nuclear-ka ah oo ay ku jiraan Shiinaha iyo Ruushka kaaliyaha xogayaha amuraha dibadda ee Mareykanka ee xakamaynta hubka Thomas Dinano ayaa shir caalami ah oo ku aadan xakamaynta hubka waxa uu ka sheegay in Washington ay hayso xog muujinaysa in Shiinuhu uu fuliyay tijaabooyin qarsoodi ah oo nuclear ah isla markaasna isku dayay inuu qariyo si looga fogaado jabinta heshiisyada mamnuucaya tijaabooyinkaasi Shiinaha ayaa diiday eedeymahaasi iyadoo xafiiska xakamaynta hubka Shiinaha mas'uul ka tirsan isla markaasna uu qaabilsan dhanka hubka la xakameeyo dowladda Shiinaha oo lagu magacaabo Shin Jian oo sheegay in xukuumadda Beijing ay si mas'uuliyad leh u maareyso arrimaha nuclear-ka isla markaasna ay ka soo horjeedo sheekooyinka been abuurka sida uu yiri ee Mareykanku uu faafinayo wuxuu sidoo kale Mareykanku ku eedeeyay in uu hurinayo tartan dhanka hubka ah eedeymahan ayaa imaanaya xilli heshiiskii New START ee xadidayay gantaalada nuclear-ka ee Mareykanka iyo Ruushka uu dhacay taasi oo keentay in markii ugu horeysay tan iyo 1972 aysan jirin wax xadidaad sharci ah oo ku saabsan hubka nuclear-ka Mareykanku wuxuu doonayaa heshiis cusub oo Shiinahana lagu soo daro laakiin Beijing ayaa sheegtay inaysan hadda diyaar u ahayn wada xaajoodyo cusub
khubarada ammaanka ayaa ka digaya in xaaladan ay kordhin karto tartanka hubka nuclearka iyo halista qaladaad military oo caalami ah. waa hagaag shalay magaalada Masqat ee dalkaasi Cumaan waxaa lagu qabtay wadahadallo dhex maray wafuud ka kala socotay Iiraan iyo Mareykanka. Haddaba faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa wadahadalladaasi. waxaana la sheegayaa in wafdiga Iiraan oo hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Cabbaas Araaqji ay soo bandhigeen in aysan ka laabanayn in markaasi Iiraan ay naaxiso ama bacrimiso uraniumka. waxaana la sheegayaa Iiraan inay ka soo horjeedo hadalka iyo go'aanka Mareykanka ee lagu joojinayo kobcinta uraniumka ee Iiraan. Iiraan sidoo kale waxay miiska soo saartay in aan laga wada hadli karin innaba haba yaraatee barnaamijyadeeda gantaalada. waxaana la sheegayaa wadahadalladu inaysan ahayn kuwo toos ah. waxaan u kala dabqaadayay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Cumaan Badr al-Busaydi. waxaana lagu soo warramayaa in kulamadu ay ahaayeen kuwa si gaar ah xiisad u lahaa. Araaqji ayaa sheegay in jawiga wadahadalladu ay ahaayeen kuwa ku soo dhammaaday si wanaagsan isla markaasna ay yihiin bilow cusub inkastoo kalsooni yar ay jirto. wuxuu adkeeyey in wadaxaajoodida ku koobnaadaan arrinka nuclearka, laakiin Mareykanka ayaa doonaya arrimo kale iyo gantaalada in lagu soo daro. dhinaca Mareykanka mas'uuliyiin ayaa sheegaya in wadahadalladu ay sii socon doonaan inkastoo Washington ay weli doonayso in laga wada hadlo arrinta gantaalada balastiga iyo arrimo kale xilli xiisadu ay sii xoogaysanayso. dhinaca kale agaasimaha guud ee hay'adda caalamiga ah ee tamarta nuclearka ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA Rafael Grossi ayaa sheegay in hay'addu ay si joogta diyaar ugu tahay inay kormeer u dirto Iiraan si ay u baaraan xarumaha nuclearka ee dalkaasi. waraysi uu siiyey telefishinka Russia 24 Grossi ayaa sheegay in kormeerayaasha IAEA ay had iyo jeer diyaar u yihiin inay tagaan Iiraan, isagoo xusay in hadda kormeerku ay ku hayaan goobo yaryar oo ku yaala dalkaasi, balse ay u diyaar yihiin inay kormeeraan xarumo waaweyn markasta oo loo baahdo. Grossi ayaa waxa uu tilmaamay in mowqifka IAEA uu yahay in dhammaan dhinacyada ku lugta leh arrinta nuclearka Iiraan dib loogu soo celiyo miiska wadaxaajoodka si loo gaaro heshiis ogolaanaya in kormeerayaasha hay'addu ay si buuxda ugu laabtaan Iiraan. wuxuu sheegay in loo baahan yahay in laga baxo xaaladan cakiran ee ka dhalatay dagaalkii 12 maalmood socday ee bishii Juun dhacay. wuxuu intaasi ku daray Mareykanka uusan doonayn wax hawlo nuclear ah oo Iiraan ka socda, taasi oo ka hor imaanaysa mowqifka Tehran. Grossi ayaa xusay in kormeerayaasha IAEA ay muhiim tahay inay la socdaan fulinta heshiisyada, isagoo ka digay in haddii aan la helin kormeer buuxa ay jirto halis dib u soo celinaysa colaadda. waa tahay haatanna dhanka Turkiga. hay-adaha sirdoonka ee dalka Turkiga ayaa ku dhawaaqay in ay xireen 2 qof oo lagu eedeeyey basaasinimo ayna u shaqaynayeen hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad, isla markaasna ay siinayeen macluumaad loo adeegsaday howlgallo dilal ah. wakaaladda wararka Anadolu ee laga leeyahay Turkiga ayaa sheegtay in 2 nin lagu qabtay magaalada Istanbul kadib muddo ay daba socdeen laamaha ammaanku. 2 qof ayaa waxay kala yihiin Mahmed Bodak Darya oo ah injineer macdanta iyo Faisal Karim Oglu, sida ay sheegeen ila amni. Darya ayaa waxaa xiriir la sameeyey Mossad sanadkii 2012 kadib markii uu ganacsi ka bilaabay dhagaxa marbalka loo yaqaan ee magaalada Marsin. waxaana la sheegay in loo adeegsaday ururinta xogta iyo xiriirinta dad kala duwan oo bariga dhexe ku sugan. baarayaashu waxay sheegeen in Darya uu shaqaaleysiiyey Karim Oglu oo asal ahaan Falastiiniya, isagoo fulinayay amarro ka imaanaya Mossad. 2 nin ayaa lagu eedeeyey inay ururiyeen macluumaad ku saabsan Falastiiniyiinta, dhaqdhaqaaqyo ganacsi iyo qalab la xiriira dayuuradaha aan duuriyaha lahayn. sidoo kale waxaa lagu tuhunsan yahay in lagu xiriirinayo dilkii injineer Falastiiniya oo lagu dilay Tunisia sanadkii 2016. injineerkaasi oo si weyn ugu xeel dheeraa dayuuradaha droniska. sirdoonka Turkiga ayaa sheegay in Mossad ay siisay Darya qalab isgaarsiineed oo qarsoodiya, isla markaasna lagu sameeyey tijaabooyin sir ah. 2 nin ayaa hadda su'aala lagu weydiinayaa Istanbul kadib howlgal ay iska kaashadeen sirdoonka Turkiga, booliiska iyo xafiiska xeer ilaalinta. waa tahay arrinta marka waa la isdaba joogaa. weliba muddooyinkan Turkigu aad buu wuxuu u qabqabanayaa kooxo canaasiir ah oo lagu tuhunsan yahay inay inta badan
إسرائيل معلومات لك سيرتون كأيسيان أريتن سوكر وحي كسو أدي ساحلي حيسد عروس أي ولا حيسو ودك الدبلوماسية ده تركيا يو إسرائيل وإنه أركض أن وحي عربها سيكسو كرده أنت أيام كسو جبجبين يا ساكا برنامجك حول شدة ورركا وأنا كوبها ستهين دا وشدة برنامجك si aad ula socoto wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo